السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن كسر هذا شيكو أما قصة دبا oo ay ku dhacday ninkii oo iga sheekeeyay ninka ay ku dhacday wuxuu ku bilaabay qisada sidatan waxa ay buur taariikhdu 1977 waxaan ahaa arday yar oo 14 jir ah oo dhigta mid ka mid ah dugsiyada magaalada Burco maalmo kadib waxa la qoray ciidamadii dawladda Soomaaliya waxa tababar si degdeg ah loogu qaaday buur gobolka Baay waxa tababarkii looga bilaabay xirad tababar oo ku dhow magaalada Baydhabo wuxuu yiri anagoo tababarkii ku jirnaa ayaa maalmaha ka mid ah ciidankii qayb ka mid ah lagu amray inay gaariga fuulaan iska rogada oo ay xaaba ku soo guraan ciidanka wax loogu qariyo amba ay dab ka dhigtaan aniga iyo dhowr iyo 10 nin oo kale oo dhowr qoriye ka sidato dhowrta qoriyaha sidatana aan ka mid ahay ayaa fuulnay buuri gaarigii halkii xaabada laga soo gurayay markaanu tagnay ee ciidankii xaabada ku gurayaan buuri gaarigii ayaan anigu aan qori baan sitay oo koornaha uga yar baxay dabadeed waxaan maqlay cabaad iyo shanqadh meel wax ka shanqadhayana aan maqlayn geed yar oo laan ah oo qoyan oo si qurux badan u baxay oo aan weynayn ayaa agtayda geedkan uu cabaadaya dhageyso sheekada si fiican oo kugu celiyo geedka ayaa cabaadaya geedku waanu lulmaya dabadeed wixii lulayay ayaan geedkan la yaabay oon garan waayay geedkii ayaan dhan walba kaga wareegay xagga shisha ayaan ka maray xagga sokana waa ka maray dabadeed wixii cabaadayay ayaan gartay inuu geedka yahay anigu waan yaabay anagoo yaaban ayaan dib ugu noqday buur ciidankii markaasaan ku uriniyo kaale waxbaan arkay geedkan ila soo eega geedkan cabaadaya ee islulaya geedkii markay ciidamadii qaar ka mid ah warkeen aanu intan u jirno ayaanu aragnay buur geedkii yaraay qoyanaay qurux badnaa bahal musbaara oo geedka dhaxda kaga taagan ciidankii qaar ka mid ah ciidankii ku ila socday dhammaantood waga yaaceen buuri oo wuxuu yiri waxay ugu dhaaheen deegaankan sixirka ayaa looga yaqaanaa geedkana sixir ayaa ku taagan ee intayna inaga inugu dhicin aynu iskaga yaacno nimankiina waga yaaceen anigu inaan yar baanahay sixirkana ma aqaano iyo sida uu sheegayaan kamanaan baqana geedkii ayaan ku dhawaaday musbaarkiina qorigeyga soorkiisii ayaan suray oo kaga gooyay ciidankii way iga yaaceen oo anna waan ka daba tago gaarigii baan la fuulay intii hore adaba ma naxsanayn buuri ninkani ee ciidankii iyo nimankii aan soo raacay ayaa wuxuu igu qayliyay oo hadal igu bilaabay oo ka cabsiina oo ka mid ahaayeen in yar kadib seeg toddobaad kadib seeg iyo badbaad gashay iyo kiyaraaba loo yaaba kelmado noocaas ayay igala dhammaan waayeen buuri dabadeed anigiina waxa igu abuurantay naxdin iyo inaan baqdo oo nisraaha wixii aad ka goysay sixirka sheegayeen bilaa adiga kugu soo noqda sidii iyadoo bacdi igu xiran tahay buuri toddobaad dhan ayaa oo sidii u baqanayo nasiib wanaag odayga tababarka ciidanka madaxda ka ayaa oday reerkayga ahaa buuro adeer igu yar toosnaa odayga ayaan ka yarag dhawaayo kolka aan cabsida iyo waxayaan ka yarag dhawaan jiray buuri wuxuu yiri maalmaha ka mid ah anigoo sidii bacdi igu xiran tahay ciidankiina iga riwaaysadaan oo yiraahaan in yar seeg iyo sixirkii baa kugu soo socda iyo maalmo kadib iyo maxay kolba ay iga riwaaysadaan oo naftaydu bay qalqal ku jirto ayaa maalmaha ka mid ah tuulada oo noo dhaweyd ayaan u raacay ciidamadii qaar ka mid ah buuri ciidankii markaan raacay buuri eenu meel sida maqaaxiya fadhina aanu kana quraacanano ayaa halkaa wax naga soo baxay buuri nin odayo oo dheer oo macawis iyo shaar xiran oo xiiran oo dhukuran iyo laba hablood oo wax badan kala weynayn oo baalaha ka socda ninkii waa nugu soo hagaagay markuu nugu soo hagaagay uu salaamay salaantiina waa laga qaaday wuxuu yiri adeer waa lay ka soo tilmaamay lacagtan oo abaalmarin kugu sido labada hablood taa doontana ina aan ku siiyo abaalmarin kaaga dhigayo ayaan kugu abaal gudayaa waayo aniga ayaad naftaydii badbaadisay bacdi baa igu xidhnayd oo sidii baan u baqanayay anigoo hadal oo halkii fadhiya ayuu yiri adeer maalin dhaweyd
geed musbaar ma ka goysay may baan idho waan khalkhalay ciidankii baa igu qayliyo haa igoo ii garab yaaceen alxaasil wuxuu yidhi ninkii aad musbaarka ka goysay geedkii aniga laygu sirxay anuu gurigaygaan aalay oo aan baralaati u aalay anigoo sixran oo xanuunsanaya laakiin geedkii laygu sirxa ayaad ka goysay adigu musbaarkii laygu taagay markaa labada hablood mid baan ku siinayaa lacagtanna waan kugu abaalgudayaa qaado anuu waa khalkhalay buu yidhi lacagtiina waan ka cararay hablihiina haya baan idhi hablihiina waxaan idhi aan idhaahdee adeerkay baan u teganaa oo halkaa joogaan ku igu yidhi lacagtiina ciidankii baa qaatay oo shaah iyo qadadiis kaga bixiyey anuu khalkhalkii hayay mid ka sii badan ayaan sii khalkhalay buu yidhi waxaan u geeyey odayga adeerkay oo xeradii jooga markaasaan ku yidhi adeero ninkan la hadal adeero iyo odaygii wuxuu yidhi way safka wuxuu ku yidhi inankani waa inan yar iskuulkii baa laga soo qaaday xerad ciidan buu ku jiraa waa askari waa inan yar dabadeed sanadka dambaynu isu dhisannaa inanka iyo inantee sidaa iyo nabadgelyo aniga xaalkaygu waa eber buu yidhi oo sixirkii iyo wixii la sheegay ayaan ka baqanaya dabeed wuxuu yidhi odaygii intii aan tababara ku jirnay maalin walba uuna soo mari jiray oo inankii aan inanta siiyey ma joogaa buu odhan jiray dabadeed adeerana haa buu ku odhan jiray waxaannu maanweylinaba waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid ah isagoo sidii loo ballansan yahay ayaa wuxuu yidhi ciidankii tababarkii u dhammaaday ciidankii aroor qura ayaa hameennimo welibana ayaa laga furay albaabka oo loo soo hojeeyey halkaa iyo muqdisho oo ciidanka wuxuu yidhi marka tababarka loo dhammeeyo ilaa muqdisho inta badan waa la soo lugaysiin jiray hameen madow ayaan xeradii ka soo gudnay odaygii iyo inantii uu abaalgudka ii siiyeyna maalintii ayay igu dambaysay oo waayo aniga waxay ahaydba ilaahayow odaygan iyo inantiisa yaa si uun ku dhaafiya ayuu xaalkaygu ahaa markii aan xerada tababara ku jiray iyo bilihii uu odaygii nagu soo noqnoqonayey ee uu lahaa inankii iyo inantii goormaan isu dhisnaa wuxuu yidhi sidii baan kaga imid inantii lay siiyey sidoo kale wuxuu sheegay ninkan odaygii bilihii uu meesha ku sugnaa ee sheekadan ka dambeeyey inayna maskaxdiisu caadi ahayn oo aamini waayey inuu dibadda u baxo inuu ciidanka tuulada u raaco uu la soo shaaheeyo iyo inuu xataa uu kula cuno bartay wax ku cunayaan ciidanku nasiib wanaag odaygii adeerka u ahaa ee meesha taliyaha ka ahaa amba tababaraha ka ahaa ayaa wax la cuni jiray labadiisa koobaa shaaha oo ayuu la cabbi jiray giraamkiisu la cuni jiray halka uu seexanaya ayuu ag seexan jiray maxaa yeelay khalkhal ayaa ku dhacay gebi ahaanba bilihaan meesha ku sugnaa bila xaalad xun aan ku sugnaaba ahayd buu yidhi waxaan nafisay buu yidhi maalintii aan muqdisho nimid ee aanu ka nimid meeshii oo aan iyada lafteeda islahaa odaygii bilow ilaa halkan soo daba socdaa adoo alxaasil odaygii iyo inantiisii sidaa ayaan isku daynay buu yidhi oo aanu ku kala hadhnay sheekaduna saasay ku dhan tahay waana qiso dhaba oo ku dhacday inaan garanayo